سمينا أكونت كأجراء فرع وفلنا أكونت خاص جد لنا وسمينا سيدا يكونوا جود أيين صدق أو جد لا كاميرا أيها واحد ثاني جراء munaasabad lagu maamuusayo urur cusub oo loogu magac daray gargaar xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay wadanka Norway qaasatan magaalada Oslo ayadoo halkaas ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah qurbo joogta Soomaaliyeed ee degan magaalada Oslo dadkii ka soo qayb galay ayaa ka hadlay marxaladii ay soo mareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo baahidii loo aasaasay ururkan gargaar dadkii halka ka hadlayna waxa ka mid ahaa barnaamijkan haddii aan faahfaahintiisa idin siiyo ujeedadiisa waa sidii loo taakuleen lahaa ciidamada qaranka sida ee Soomaaliya waxa uu ku dhashay fikir ah xoogiisana uu ka yimid aniga Cabdiqaadir Abdaan Maxamed culumada gabdhaha haweenka sharafta leh halkan isku wada yimid dhan bahda saxaafada gidin waa idin salaamay waxa idin salaamay salaanta ee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ama bacda ciidanka hadii aan si fiican u gudo galo waxa waaye ciidankanu waa ciidan aad loo tababaray loo carbiyay aad u xoog badnaa haddii maanta aan been iska dhowro ciidamada Afrika ciidanka ugu xoog badan oo ahaa markiisa hore haddii laakiin ninka Soomaaliga ama gabadha Soomaaliyeed ee afartaas aysan keenin ee waqtigeena aan ku lumino waxyaalaha meesha aan la joogno afartaas waxa waaye ina keento aqligaaga oo Ilaahay ku siiyay ina la timaado aqoontaada noo ciribtaa noqoto aqoonta waxa laga marka la sheegay dadka inay fikiraan waxbarashada iskoolka iyo jaamacadda aqoonta diinta waa Ilaahay ku siiyay aqoon kale ma u baahnid saddex waqtigaaga ina wax ka keento muhiim waa waqti wax walba ka wanaagsan midda afraad oo dad Soomaaliyeed aysan jeclayn waxa jeebkina ka fikirtaan waa inaan isticmaalno dad Soomaaliyeed ku fiican wax bixiska hadaan dhamaanta qadiisi way siinayaan caaw gurigooda hadaan tago ay aqoon way soo dhaweynayaan laakiin hal problem haysto lacag joogto bixi waa dhib ku tahay magac ma jiro aan ka raadsanayno aan ahayn wadankeena aan jecelnahay iyo dhibkaas inaan ka baxno ujeedo kale oo noo dheer ma jirto marqaatina waxay idin kugu noqon doontaa lacagta dhiibi doontiin inayna shaqo ku lahayn inayna ku arki doontiin qolada loo wadana shaqo kuma lahaanayso laakiin dadka loo maamuli doona insha Allah hadii la yiraahdo war hadee taariikhdeena shahar baa inoo ku sheekeeyay wax qabadkii leeno ka baahnaa sawirada ama ku qoran yahay anigu hadalka badirmayo taariikhda hadee marar badan baynu waxaanu isugu nimid ururo kale iyo siyaasad kale iyo Norway maanta ciidanka bay taaganta mar raba inaan ku dheeraado maxaa jira taariikhdaas waa kooda dhirigsantihiin qofku waxa la rabaa inuu ogaado haduu Hargeysa jooga haduu Garowe jooga haduu Beledweyne jooga haduu Muqdisho haduu Kismaayo jooga inuu ogaado kan Gaarisa jooga iyo kan jooga Jigjiga iyo kan jooga Djibouti inuu walaalihiis yahay inuu ogaado oo nation isku yihiin taasi waa nation horta oo Soomaalinimadu inayna naga lumin marka hadii aan aqligeena ka shaqeysino wax uun baan ka qaban karnaa yeenan ka qabanin sida ay tahay oo dhan aan u qaban laakiin wax uun baan ka qaban karnaa wixii Ilaahay dartiis loo sameeyana way hagaagaan nimanka baarlamaanka u kala yaacaya ee kuraasta isku haysta waxay isku haystaan waa dhaqaale kamay fikirin ninkii ilaalin lahaa Burundiiskan iyo nimankan Afrikaanka iyo Etoobiyaanka way noqonayaan dalkoodii bay ku noqonayaan laakiin ninka haraya ee dalka joogaya waa ninka Soomaaliyeed waa ciidanka Soomaaliyeed galad waxaan u haystaa gobonnimada sharafta leh calanka buluuga guudkayga ii suran inta haddii aan midowno maskaxda iyo maankiyo muruqa isu geyno militariga caawino agoontooda maamul iyo u sameeyna maaweel madrasooyinkayno iyo meelay seexdaan mawlaha ilaah baa maalin kale nasiinaya weliga hamoogaan militariga dalkaada iyo madaxdooda gaarka علي wadani aad u maasan tahay adiga iyo qabanqaabiyaasha xafladan quruxda badan ee caawa isugu nimi ee uu macnaheedu dal aan ciidan lahayn ee dal jira ma identity-ga wadanka waxa uu ku salaysan yahay macnaheedu wadankaasi inuu leeyahay ciidan in maanta bulshadeen ku Norway ay u noqdaan tusaale ama hoggaan ay u noqdaan jaaliyadaha kale ee Soomaaliyeed ee ku nool wadanada dibadda waxay tahay tusaale fiican maadaama taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya General Maxamed Aadan oo hanin inaga mid ah shuxiga tirada badan bukhliga tirada badan la iska dhaafo gacantu inay wax bixiso lagu dadaalo dhalinyarada way wada shaqeeyaan
kaan shaqayn xataa waxbuu helaa markuu Yurub joogo mise America joogo mise meel kasta uu joogo jaaliyada Soomaaliyeed oo soo qaban qaabisay barnaamijka gargaar xooga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa madax ka ahay ama hogaaminaya Cabdiqaadir Abdidoon ayaa maanta insha Allah barnaamijka maadaama soo qaban qaabi ayaa wax warbixin yar ka bixinaya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin inta caawa nagala soo qayb gashay waxa aad iyo aad caawa ii farxad geliyay hawshii aanu bilaabay in uu Cali Wadani uu noqdo qofka ugu horeeyay $100 miiska saara insha Allah hadii Ilaahay yiraahdana inta kale waxaan rajaynaynaa inay hawshaas si weyn nooga qayb qaadan doonaan SNTV aad iyo aad idinkaga mahad celinaya ka soo qaybka nagala soo qayb gashay Sheekh Cusmaan Ali Wadani SNTV Oslo